waxaa maanta si rasmi ah xariga looga jaray garoon kubad cag oo loogu magac daray Green Sport Center taasoo wax weyn ka kordhinaysa dhalinta iyo dadka cuslaaday si ay u dhisaan jirkooda isla markaana dhalinaysa isdhexgalka bulshada si loo xalilo taariikhda dhulka la gashay mustaqbal daayir Soomaaliyeed. garoonkan oo leh baaxad weyn ayaa u qaybsamay laba garoon oo mid yahay akademiya lagu soo saarayo jiilka mustaqbalka marka qaarkoodna dadka cuslaaday ay ku ciyaari karaan. munaasabada lagu xusayo garoonkan ayaa lagu qabtay Hotel Karaamato waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka Isimo nabadoono dhalinyaro madaxda shirkadda Somtel ganacsato iyo marti sharaf kale. waxaana ugu horeyn ka hadlay mulkiilaha garoonka Green Sport Center Maxamed Faarax Dalmar sababta ku dhalisana sharaxaya dalka dadkii mustaqbalka noqon lahaa sanagu nahay waa kuwa wadada u maray kulligood taariikh bay aadeen waxay taariikhtu aadeenayna badankooda waxa weeye nin saaxiibkooda ama kubadooda ciyaari jiray oo halka ka tagay oo Yurubta galay oo meel garoon yar oo cagaaran isku soo sawiray dabadeed ninkii kale nama joogiyo marka waxaan rabaa markuu ninkan xagga isku sawiray kana xagga isku sawiray Somtel waxay u ballan qaadaysaa inay halka u keento internet intay halka jibsadaan ka galaan iyaguna u diraan halkaas Somtel u ballan qaadaysaa. gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Maxamed Gallan oo isagu xariga ka jaray talaabadana ku tilmaamay mid dhaxalgala ayaa xusay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa aad baan ugu faraxsanahay in ay iska soo daba ka dhacaan garoomada iyo goobaha dhalinyarada loogu talagalay iyo kuwa dhexe iyo kuwa uu nagala joogo Dictoriasin iyo ragiisa dhammaan loogu talagalay in lagu dhiso oo lagu wacyigeliyo oo hadduu Ilaahay ku roonyahay waqtiga ku wada qaataan aad baan u soo dhaweynaynaa aad si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa ninka dhalinyarada ah oo fikirka barnaamijka kan lahaa yaan loo malay kaliya in maaragtay dhalinyarada kaliya sportiga ay gaar u leedahay waxaan jecelahay odayaasha iyadu xataa inaan ka qayb galo garoonka yar ciyaarta ayaa lagu furay laba kooxood saxaafadda iyadoo ahayd mid xiise leh ayaa mid ka mid afka ciidda loo daray waa sida dareenka kooxda badisay kabtanka kooxda Turaabi Axmed Ciise ayaa sharaxaya ciyaartan waxay ciyaar aad u wanaagsan oo isdhexgalka bulshada runtii qoloba mar walba guusha raacaysa guusha anagana raacday 7 iyo 2 gool runtii waa score aad u weyn